الله naxariiste waxaa maanta isbitaalka ciidamada xoogga dalka lagu aasay taliyihii degmada Waabari gaashaale sare Axmed Baashani Caluule iyo sidoo kale waliba taliye ku-xigeenkii qaybta Wariwacdi magaalada Muqdisho gaashaale Cabdibaasid Maxamuud iyo waliba sidoo kale dhammaan ka tirsan ciidamada booliska kuwaas oo habeenkii xalay ku geeriyooday qarax ka dhacay afaafka hore ee saldhigga degmada Waabari isla markaana halkaas saraakiishaasi lagu leegtay ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiil ka tirsan dawladda iyo waliba shacabweynaha kala duwan iyaguna ka tacsiiday geeridii ku tibi dhaawicii dhimashadii soo gaartay waxay ahayd mid aanan u jiifad doonin oo aanan dhayn dhawr qabaan meesha dhibaato nagu keeni doona والدكين وعبد باسكت عبد محمود عقي الله يرحمه رحمه جنة الفردوس الله كبرابيه والله من هاي ضد بدن كبحي اهل بدن كبحي والدكين وهاي مدحدين وهاي انجيس aniga هاي الله ونحرسه حريصنا على كبرابيه انا سمي ما laga siiyo أحمد عبد الله باشا iyo عبد باسكت saaxiibada waan ahayn in badan waa soo wada shaqeynay maqaadirta rabbilahaas markay soo dhacaysa waxaan leeyahay la iska cafiyo maqaadirta rabbi waa meel ma jirto waxaan leeyahay ummadaan dhibaatada iyo caqabada iyo dhibaatooyinka jira Allah ka saaro Cabdibaasid Maxamuud Cage inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa geeri aad u xanuun badan taabatay oo murugiyo badan leh ilaahay waxa uu bariyaa jannatul firdaws shakhsiyaadkiisa waxa waa in aad iyo aad u fiican waxaa la sheegay in hayeen saraakiil dhalinyaro oo saaxiib ah kuwaas oo ku midoobay isla markaana ku saaxiibay sidii shacabka Muqdisho ay nabadgeliyo amni ugu noolaan lahaayeen isla markaana looga hortagi lahaa wax kasta oo shacabka dhibaya waana kamid ahaayeen saraakiisha waqtigan ugu firfircoon laamaha amniga iyo nabad sugidda booliska maalmihii ugu dambeeyay waxaa degan amniga magaalada Muqdisho isla markaana waxaa hoos u dhacay qaraxyada al-shabaab ay ka fuliyaan gudaha magaalada Muqdisho xilli lagu jiro bisha Ramadaan ee barakeysan